هاي طبفت يبغى قرن معايا ممكن ما بنا الكيسي كبر أوبنا كده وايه ماشي انا هورت مركه ورا warka in lagu duubadaa waxaan ku yidhi marka hore iska waxaa dirta beeraha oo dadku iska yaqaanaa tani ma aha hub lagu dagaalamayo halkani gugur baa la yidhi annagu ugu nimi ninka la yidhaahdo dee beertaasi waa beer meesha halkanina ceel baa la yidhaahdaa gugur baa la yidhi ceelkaasay magaca kula baxday gugur la yidhaahdo annagu iyadoo beertaa ninka la yidhaahdo saalax ismaaciil axmed saalax soo mudhaa loo yaqaan waa beerta le tan dabadeedna carruur baan annagu berigii hore ahaynoo waxaanu arki jiray iyada oo meesha allabariga la isugu keena allabarigaas hilibkaa la keeni jiro caanaha la keeni jiro dhowrtadaa la keeni jiro shaadirigaa lagu karin jiro geedkan iyo dhirtanaa la harsan jiray waxaan u garaadsanay iyadoo la yidhaahdo baanu garaad yeelan macnaha dee ama ku weynaanay waa kaa gugur lagu allabariyayoo roobku waa da'aya waa la xaadi jiray marka allabariga kabacdigii dee waa waaweynaano waa degno beeraanu ku yeelano rag waaweyn ku yeelan lama deyn allabarigii lagama deyn ismaatankii iyo allabarigii lagama deyn iyadoo sidii ay u socoto baa maalin maalmaha ka mid ah halka la isugu yimi oo qola timi oo niman wasiir ku-xigeena iyo wax yimaadeen oo odaygaa saalax ismaaciil baa halkan oo wuxuu yidhi niman yahow ceelkaasi waa guray biyo hoos bay u dhaceen mishiin baan u baahanahay ceelkana dee ilaa iyo beri oo waa lagu allabari jiray beertaydina waa taasoo haddeer ma beera biyihii baa ka go'ay habeenkii shiikhaas marka la xaadho ama habeenkii waa laydhan jiray buu yidhi marka la xaadho ee lagu allabaryona roobkaa di'i jiray hadalkii baa laga duubado marka la xaadho oo allabariga la dhigo allabariga dabadii shaadaliga iyo caanaha iyo cuntada marka la cuno baa la xaadhi jiray marka la xaadhona wax la odhan jiray roobka hada'ayo oo roobku ilaahay amarkiisa ilaahay baa ilaa roobka amraya haddana alla wou qaadi jiro waa di'i jiray had iyo jeeraale waxaan garanayaa aniga oo muddooyinna garanaya marka odaygaa saalax ismaaciil baa maalin hadalkaa halkaa wuxuu yidhi waxaan rabaa ceelkaasoo biyo hoos u dhaceen oo beertii sidaa iga tahay in mishiin lay keeno in haddii allaba kuu roon yahay dee shiikhaas meesha ku aasnaan jira iyo beerta iyo wuxuu biyo waa ka go'e allabarigii la isugu iman jirayna biyo waa ka go'e waxaan doonaya in mishiin lay keeno biyo hoos bay u dhaceen ilaahay amarkiisa warkii unbaa xaggaa oo maalintii dambe gabadh baa timi meesha la yidhi waa ciidagale waxay ka timi dabadaha waxay tihi shiikhii la sheegayay lalahaa roob baa da'amee halkanaanoo anaa igu timi halkaa waa soo kaxay halkanaan dabadeedna waa ta qudbi waxaan yar ka samaysay oo wastaad bay u dirtay laba wastaad oo cabaad sameeyey laakiin anigu intaydaa waxaan u leegahay ama odaygaa dee iga weyn wuxuu yidhi maalintaa uu qudbadaynaya saalax ismaaciil waxaan hay 85 jir waxaan u garaadsaday buu yidhi soo mudhe oo allabariga dhiga oo shaadaliga dhiga oo la yidhaahdaa beertiisuna dee taa tahay saa ugu odantaa ilaa ceelka waa oday la yidhaahdaa haddaa roobku da'aya dee wixii laga qabanayo mustacdiin baanu wixii laga qabanayo haddii wax laga qabanayo cid wax ka qabanaysa dee mustacdiin baanu nahay ceelkiina biyihii way ka gudheen oo isaga laftiisu wuxuu u baahan yahay dee shaqo wax kasta biyo soo saara oo wax laga qabto oo biyaha mishiinkaa lagu soo tuuraa miya ma luqadayo horta qodaal bay qodaal gacan markii loo keenay baa guri halkani ku dumado jabay dabadeedna ka dambe cidi wax kama cabin oo biyihii baa hoos u dhacay
shaqaale loo geliyana u baahan yahay ciidan haa ciidan oo la soo dhooba qaado soo dhooba qaado oo ka shaqeeya u baahan yahay ya intaas unba mishiin iyo ma khayr دقوحنا وكله يعني بسم الله الرحمن الرحيم وطن حباشي gure dadkii meesha degaankii aniga wareystay baahiday qabaan in la hoos loo eego waa muhiim generatorkii biyaha ceelka ka soo tuuriya ceel baa halkan lagu deganaa dadka degaankii ceelkaasi ku deganaayeen ka cabi jireen ceelkiina hoos buu u dhacay marka wuxuu u baahan yahay ceelkii in la dhooba qaado wixii sadaqaadii waalidka loola soo baxaya awowgiin nimankaasi inaad ku soo caawisaan ood ceelkaasi ood u qodaan iyo riigga iyo muxuu ahaye allahuma salli calaa maxamed iyo generatorkaas markaa khayr insha allah walaal markaa haddii alla yidhaa wixii sadaqa loo soo ururinayo meeshaasina dhisme u baahan tahay in la dhisto sida xabaalaha kale qudbiyada kale loo dhiso dadkii deegaankiina waa kuwa baahidoodii sheegay ceelkaasi laga cabayey ceelkaa laga cabi jiray dad iyo xoolaba ka cabayeen ducada sheekhu ku socotay waa sadaqo degaankii intaasay magaranaysaa nimankaa dee ilaaliya xabaasha ee beertoodii ay ku dhex taallaaba ugu baahi badan dadkii inay ceelkaa loo dhooba qaado generatorkana loo keeno insha allah marka ugu horeysa xabaashana wax laga soo qabto marka insha allah bilaahi tawfiiq waxaan joognaa ilaahay qabriga ha u nuuro oo ilaahay maxaan ku dhahdaayey darajaat ulculaa fi ljanna ha geeyo waa xawaalkii gurgure meesha gurgur baa la yidhahdaa gurgur wuu ku aasan yahay waa daalo hoosteeda maxaan ku dhaha ama surad burta surad la yidhahdo hoosteeda waxaa la yidhi halkan berigi hore waddada ma mari jiray dhawaan beri dhexday soo martay markaa markii hore maxaan ku dhahdaayey beri dhoweyd baa la duubay oo la ogaaday waanu soo siyaarinay shiikha ilaahay dembigiisa ha dhaafo ilaahay darajooyin culaha maxaan ku dhahay aljannat alculaa ha geeyo markaa waxaan u sheegayaa dadkii maxaan ku dhahdaayey qabiilkiisii gurgure oon aniguna ku abtirsado inay ogaadaan dee shiikha oo ka warhayaan oo halkaa ay ku ogaadaan haddii ay baydankeeda leeyihin soo duceeyaan oo ay dee maxaan ku dhahdaa soona ziyaartaan haddii ay baydankeeda leeyahay sidaasaan maxaan ku dhahday ayaan idinku goorinayaa dee waan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu